qisadii Maacis waxaa tahay saxaabiyad. Waxaa og tahay saxaabadu inay ahaayeen kuwa ugu wanaagsan khalqiga Alle marka laga reebo nebiyada iyo rususha. Saasay tahayna waxay ahaayeen bani aadam caadi ah oo sidaanoo kale u khaldamo. Waayo nebiyada iyo rususha oo keliya ayaa ah macsuumiin. Maacis radiyallahu canhu ayaa markii uu zinaystay wuxuu u tagay nin ay saaxiibo ahaayeen oo la yiraahdo Hazaal al-Aslami. wuxuuna u sheegay wixii uu sameeyey, balse Hazaal kama uusan waanin arrinkaas ee wuxuu yidhi orod nebiga u tag. Maacis radiyallahu canhu wuxuu u tagay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uuna u qirtay inuu zinaystay. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa wuxuu amray markaas in dhagax lagu dilo, waayo haddii arrinka uu gaaro madaxweynaha ma lahan wax cafis ah oo waxaa qasab noqonayo in la oofiyo xadka. Nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa markaas kadib waxa uu la kulmay Hazaal, waxa uuna ku yidhi way fiicnaan lahayd haddii dharkaaga ku asturi lahayd. Saxaabiyadda dhammaanteen waxaan leenahay ceebo, haddii uusan Rabbi naxariistiisa nagu asturi lahaynna waan fadeexoobi lahayn, dadkuna inooma fiirin lahayn si ixtiraam leh. Allah subxaanahu wa tacaala waxa uu jecel yahay asturka, qof walbana wuxuu kula dhaqmaa dabeecadu asaga kula dhaqmo dadka ceebahooda qofkii qariyo asagana Alle ayaa ceebtiisa qarinayo, kan dadka qalbiga u kabo asagana Alle ayaa qalbiga u kabaayo. Qofkii u socdo si uu dadka danahooda ugu qabto asagana marka uu wax u baahdo Alle ayaa u soo dirayo dad asaga dantiisa u qabto. Haddii aad rabto Allah subxaanahu wa tacaala inuu mar walba ku asturo oo uusan kaa dul qaadin asturkiisa, adigana qofna ceebtiisa bannaanka ha keenin. Dembiga ay galaan hebel iyo heblaayo waxba ha faafinin haddii uu ku soo gaaro, waayo qof walbo inaga mid ah waxa uu leeyahay dembiyo. Haddii dembiyada ay lahaan lahaayeen ur, qofna lama fariisan lahayn qof kale. Marka aad galayso guryaha dadka, gal adigoo indhala. Marka aad ka soo baxaysana, ka soo bax adigoo afla. Meel walbo aad tagto waxaa ka tahay mas-uul. Haddii aad dhexdhexaadiso mushkilad, cidna kuma darsan adiga inaad sii qodqodo mushkiladaas. Qofkii ku tuso wax yar oo ceebtiisa ah, adigana ceebtaas ugu astur inta awoodo. Saxaabiyadda diinteenna wax laga xishooda ma lahan. Islaamku wax walba wuxuu u yeelay xuduud iyo ciqaab. Bani aadamkuna ma jiraayo xuduuddaas iyo ciqaabtaas la'aanteed, laakiinse islaamku waa diin naxariis, dadkuna wuxuu ku booriyaa tawbada iyo asturnaanta. Maadaamuu Allah subxaanahu wa tacaala dadka ceebahooda u asturayna, waxaa wanaagsan inaysan iyaga iska qaadin asturka Alle oo aysan u tagin madaxweyne iyo garsoore midna si uu xadka uga fuliyo. Shaykhul Islaam Ibnu Taymiya waxa uu leeyahay dembiyada waxaa asal u ah in laga toobad keeno ee ma ahan in la fuliyo xadka. Rabbiga u toobadkeen, cidna ha tusin dembigaaga, waayo annagu ma nihin Kirishtan oo ma aadayno kaniisad si aan dembigeenna ugu qiranno bani aadam annagoo kale ah oo sideenoo kale u khaldamo. Allah subxaanahu wa tacaala ayaa waxa uu nagu sharfay diin ku taagan asturnaanta, toobadana ka dhigtay mid addoonka iyo rabbigiis u dhaxayso. Dadku way kugu ceebeynayaan dembiga, balse Allah subxaanahu wa tacaala wuu kuu dhaafayaa dembiga, wuuna ku asturayaa. Saxaabiyadda Cumar bin Khadaab radiyallahu canhu ayaa isaga oo la fadhiyo asxaabtiisa, mid ka mid ah dadkii fadhiya meesha ayaa waxaa ka timid neef. Cumar bin Khadaab ayaa waxa uu damcay markaas inuu ku yiraahdo qofkaas soo weyse qaado, balse saxaabiga lagu magacaabo Jariir bin Cabdillaah ayaa Cumar waxa uu ku yiri dadka oo dhan miyay weyse qaadanayaan amiirul mu'miniinow? Cumarna aad ayuu ugu farxay fikirkaas. U fiirso darajada ay ka gaareen asturka, ma ahan dembiyada oo keliya ee waa wax walba oo dhibsan karo qofka. Haddii ninkaasi uu istaagi lahaa soona weyse qaadan lahaa, dadka oo dhan waxay ogaan lahaayeen qofka neefta ay ka timid inuu asaga yahay. Laakiin Jariir bin Cabdillaah ayaa Cumar waxa uu kula taliyey kulligood inay istaagaan oo ay soo weyse qaataan. Cumarna waa uu ka helay fikirkaas, kulligoodna way soo weyse qaateen iyadoo aan la ogaan cidda ay ka timid neefta. Saxaabiyadda sheekha lagu magacaabo Muxamed Raatib An-Naabulsi ayaa mid ka mid ah khudbadihiisa waxa uu ku yiri, mid ka mid ah qadiibyadii magaalada Dimashq ayaa waxa uu riyo ku arkay Nebiga sallallahu calayhi wasallam, waxa uuna ku yiri
deriskaaga hebel ah u sheeg inuu jannada saaxiib igula noqonayo. Ninkaas deriska ahna wuxuu ahaa nin faqiir ah. Qadiibkii ayaa wuxuu u tegay ninkii, albaabka ayuuna u garaacay, si wanaagsanna waa loo soo dhoweeyey. Waxa uuna ku yidhi, bishaaro ayaan ku wadaa, laakiinse kuma sheegayo adigoo aan ii sheegin waxaa samayso. Ninkii deriska ahaa ayaa wuxuu iska meermeeriyey su'aasha, balse ku celcelin badan kadib waxa uu yidhi, waxaan guursaday gabar. Bishii shanaad ee guurkeena ayaa xaamilo noqotay. Yacni waxay wadaa cunug aan lahayn aniga, oo horay ayay wax u soo aragtay. Waan awooday markaas inaan fadeexeeyo, balse waxaan ka doorbiday inaan asturo, ayna toobad keento. Markay dhashay ayaan cunugii waxaan qaaday salaada subax, waxaana geeyey masaajid aan ahayn masaajidkeena. Albaabka ayaan dhigay, kadibna waxaan galay salaad. Cidna ima aysan arkin markaas. Salaada markii laga baxay, dadkii ayaa ku soo xoomay wiilkii. Anigoo iska dhigayo qof aan wax ogeyn, ayaan waxaan idhi, aniga ayaa kafaalo qaadayo, ee isiiya cunugan, ilmo ayaan u baahanahay. Dadkii hortooda ayaan cunugii ugu soo qaatay qaab baadi ahaan ah, si wanaagsan ayaan u tarbiyeeyey. Hooyadiisna waa ay toobad keentay markaas kadib. Saxaabiyadda, si uu Allah subxaanahu wa tacaala ku asturo, adigana khalqiga alle ceebahooda qari, oo waxba ha raacraacin ceebahooda. Saxaabiyadda, si uu Allah subxaanahu wa tacaala ku asturo, adigana khalqiga alle ceebahooda qari, oo waxba ha raacraacin ceebahooda. Si uu Allah subxaanahu wa tacaala ku asturo.